السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام أصحابنا maanta ifiida cusub maanta waxaan wadanaa maamo saddex wiil dhashay kadib wiilasheedii waa ay guursadeen waxay damacsan tahay maamada inay imtixaanto wiilashii gabdhahoodii waxay u martay kii weynaa kadib waxay dhahday biyaha la keeno oo ku is qaato salaada subax way dukatay oo waa kadib baaqiga soo haray ay maxaa dhahay ku shubtay firaashkii ay ka dulkacday kadib waxay u keentay gabadhii weyneed qaxwo waxay dhahday hooyo xale kaada ayaa iga fakatay sida dadku hoggaanba lagu yaqaan markaas kadib qaxwada ayay dhulka dhigatay khaylo waxay dhahday weynaantaada iyo waxaada ayaa ada isku weyne hadda meesha iga nadiif yeedhaad waxaa samaysaa inta ninkeeda imaanin dhaqso guriga ka tag kadib waxay garwaaqsatay in oo maxaa dhahay ku guuldareysatay gabadhii weyneed kadib waa iska habeysay firaashka ayay qalajisay weliba kaadi ma ahayn kii dhexe ayay tagtay kii dhexe waa soo dhaweeyeen sidii ayay yeeshay imtixaankii ayay maxaa la sida geeshay tani waa habartana ugu qaylin wiilkii ay soo istaajisay waxay dhahday hooyadaa baasaane hooyadaa sida hadda hagaaji dhaqso adina ma ugu arki karaa lahay waa iskaga soo tagtay kii raayay maxaa dhahay u imaaday kadib waa la soo dhaweeyey labadooda ayaa wasiir u soo dhaweeyey kadib waxay dhahday halay keena biyo sidii ayay samaysay kadib gabadhii aa u imaaday qaxwo keentay kadib waxay dhahday inaan xali ku kaadiyo hooyo ogow kadib waxay dhahday hooyo waxaas dhib ma lahan maxaa dhahay meeqa anaga idinku soo korkaadinayna meeqaa saana meeqaa sida meeqaa kugu dul xarir meeqaa ku dhibnay haddana dhib ma lahanay dhahday waxaan kaadidan waxaan anaa habaynayo hadda waxay dhahday nafis qaado iyo naso iyo fadhiiso markaas waxay garwaaqsatay gabadha ku guuleysatay imtixaankeedana gabadhan tahay waxay tiri hooyo maxaa dhahay soo dhawow gabadhii waxay dhahday hooyo soo dhawow gurigaa waaye aydan waxay dhahday kusoo dhawow qalbi furan kadib way soo baxday maal allaali waxay maal lahayd dhan waxay geysay dahablaha waxayna kusoo iibisay dahab waxay isku kulmisay dadkii dhammaa saddexdii wiil iyo saddexdii gabar ay isku kulmisay kadib waxay dhahday aniga waxaa idinku waday imtixaan waxaa arkaysayna ma ahayn kaadi ee waxay ahaayeen biyo kadib imtixaankiina waxaa ku guuleysatay gabadheedan oo qabo wiilka yar haddana waxay dhahday adinka waxay jeesatay labadii gabar ayay u jeesatay waxay dhahday adinka waad guuldareysateen waayo kaadi ma ahayn waxaas wuxuu ahaa biyo aa idinku imtixaamayay haddana gabadhaas ayay ku guuleysatay qalbigayga waxay dhahday adigan hooyo waa mahadsantay tiri ani waxay dhahday maal uma baahni oo maxaa dhahay dahabna uma baahni hadda waxaan u baahanahay gabadhan oo keliya waayo aniga da ayaan ahay inta aan ka dhimanayana gabadhan ayaa la jirayaa kuwaan way yaabeen way fajaceen marka insha allah imtixaan gabadhan yarta ayaa ku guuleysatay waana waxay ugu guuleysatay degnaanteeda iyo macnaha waxgaradkeeda marka insha allah sodohayaasha ayaa xumaan la fahmin imtixaan ayay wadaan imtixaanka ku guuleysta si aad u guuleysataan idinkana